xildhibaan jeesow shaad magacaagu u sheegaysa ayaan u sheegaynaa wixii maanta ka bilowda ogow waa nasiib darra in maanta gudoomiyaha baarlamaanka nagalama hadli kartid dad ay la soo istaagaan aad iyo aad ay nasiib darro u tahay because maalin walba mataqaana waxaa daba dhigtaa gudoomiye shaqada madoobe qabiil ahaan uguma hadlayay laakiin kama ogolaanayna 20 mataqaana milyan oo Soomaali ah in mataqaana mar walba mataqaana gudoomiyaha ataag adiga ku sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan moodahay in baarlamaanka Soomaaliya 275 inuu u dhaxeeyay ma moodayna inuu qabiil noqonayo labaan aaminan maartay waxay u jeedaa waa saaxiibkeed walaalkeeda tahay waxay isleedahay maartay maxaa ninka odayga waay ariga hooga u fududahay ama la isleedahay marka maanta la iga raali ahaado waxaan rabaa inaan la hadlo xildhibaankii iga soo horjeedo aniga aad iyo aad u jeclahay xildhibaan jeesow shaad magacaagu u sheegaysa ayaan u sheegaynaa wixii maanta ka bilowda ogow because maalin walba mataqaana waxaa daba dhigtaa gudoomiye shaqada madoobe qabiil ahaan uguma hadlayay laakiin kama ogolaanayna 20 mataqaana milyan oo Soomaali ah in mataqaana mar walba mataqaana gudoomiyaha ataag adiga ku sameeyay gudoomiyaha mataqaana qabiil ahaan mataqaana ka soo jeednaa ogow saa magaca gudoomiyaha u sheegaysid asagoo falxun ayaan waliba mataqaana adduunka u sheegayna waxa deelaysa ilaali nidaamka muxuu ahay baarlamaanka uu leeyahay ilaali xuquuqda baarlamaanka uu leeyahay dad badan oo mataqaana horaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dhahnay fiiro gaar ah oo yeesho xildhibaanada qaarkood because dad baa waxa u qoran wax walba oo la keenay in wax walba oo mataqaana halkaas loogu qoran tahay inay diidaan kama idinka yeelayno 40 sano waxaan ku soo dhex jirnay waa idinku jeednaa waxaan ahay mataqaana hooyo oo mataqaana khibrad badan u leh baarlamaanka waxaan ahay hooyo mataqaana waayo arag ah muxaafadka iyo mucaaradka inta waa aaminsanahay laakiin maalin walba mataqaana ataaga ku sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka marna kama ogolaanay saaxiib assalaamu calaykum gudoomiyaha baarlamaanka waxaan moodahay in baarlamaanka Soomaaliya 275 inuu u dhaxeeyay ma moodayna inuu qabiil noqonayo waa nasiib darra in maanta gudoomiyaha baarlamaanka nagalama hadli kartid dad ay la soo istaagaan aad iyo aad ay nasiib darro u tahay gudoomiye waa inaad iskaleer gareysaan dad baarlamaanka u dhaxaysana aad sheegtid oo adiga ruuxa la aad hadashay oo tiraahdo ma baarlamaanka u dhaxeeya daahir jeeso xaqas u leeyahay si caayo in si amaano wuxuu dhan ba xaqas u leeyahay tiraahdo Allah laga rabaa aad iyo aad u mahadsantahay aamin inuu yaala dastuurka heer hoosaadka ixtiraam waa naga dhaxeeya xildhibaanadana waxa waajib u ay ixtiraamaan ana inaan ixtiraamo aan dhamaanteena aan shuruucda noo taalaan dhowrno laakiin haday noqoto maalin kasta baaragtay dad mas'uuliin oo meel fadhiyo oo hay'adii dalka maartay sharciga lagu aaminay oo ugu muhiim yahay in maartay hadal xun maalinkaas la dhageysto taas